kulan wacan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin diyaarinay waxaana kamid ah midowga musharaxiinta oo laba garab u kala jabay kadib kala shaki xoogan oo soo kala dhaxgalay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo qorsheynaya inay dib isaga laabtaan deegaanadooda maadaama ay waayeen cid danaysa oo la hadasha oo ka socota dawladda federaalka Soomaaliya lafta gareen oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho xilli ay siyaasad cagcakiran ka jirto goodax barre oo shaaciyay qorshe uu farmaajo isku dayay intii uu wasiirka ka ahaa xukuumadii Xasan Cali Khayre qodobadaas iyo kuba kale ayaad ku daawan doontaa wararka Warsida TV fadlan daawaday haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay saar subscribe la wadaag asxaabtaada oo fura gambareelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo macluumaadkan halkan soo gelino waa hagaag daawadayaal aan ku bilowno madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa wada qorshe ku aadan inay dib isaga laabtaan deegaanadooda maadaama ay waayeen cid danaysa oo la hadasha ka socota dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe iyo Siciid Dani laba toddobaad ku dhow ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ilaa iyo haatan maysan helin cid soo dhaweyso oo ka socota dawladda federaalka balse haatan waxay qorsheynayaan inay dib isaga laabtaan deegaanadooda madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa maalmo ka hor shaaciyay in wax ku dhow laba toddobaad ama 11 cisho ku sugan yahay Muqdisho isla markaana aysan jirin cid la hadashay ama danaysay sida uu hadalka u dhigay madaxweyne farmaajo iyo madaxda kale ee ka tirsan dawladda Soomaaliya ilaa iyo haatan kama aysan hadlin hadalka ka soo yaray madaxweynaha Jubbaland ee ku aadan in aysan jirin cid soo dhaweysay ama la hadashay qadarisana labadaas madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa Muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka ka dhacaya teendada Afisiyoni ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kaas oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka dhinaca kale haddii aynu eegnana midowga musharaxiinta ayaa laba garab u kala jabay kadib kala shaki xoogan soo kala dhaxgalay warar hoose aan helnay ayaa waxay tibaaxayaan in musharaxiinta madaxweynaha mucaaradka uu khilaaf xoogan soo kala dhaxgalay isla markaana laba garab ay u kala jabeen wararka qaar ayaa sheegaya in musharaxiinta qaar ee ugu miisaanka culus hal dhinac isku mareen halka musharaxiinta dhexdhexaadka ay iyana hal dhinac ka soo jeesteen arrintan waxa ay salka ku haysaa awood siyaasadeed oo soo kala dhexgashay mas'uuliyiintan waxaana ay dhabarjab ku tahay aragtida midowga musharaxiinta ee ku aadanaa ka hortaga ficilada guracan ee villa Soomaaliya madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Khayre iyo xubno kale ayaa isbahaysi la sameystay madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland halka Daahir Maxamuud Geelle Cabdikariin Xuseen Guleed iyo musharaxiinta kale ay dhinac kale ka soo jeesteen kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay aan lagu arkin kulamada midowga musharaxiinta dawladda Soomaaliya ayaa waxay arrintan u aragtaa fursad ay ku kala dhantaali karto awoodda midowga musharaxiinta oo maalmihii ugu dambeeyay culays xoogan uu ka jiray dhinacyada ugu sareysa midowga musharaxiinta madaxda dawladda ayaa weli si cad uga hadlin qalaalaasaha siyaasadeed ee haatan ka taagan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka ee ku aadan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo jiha la'aanta doorashooyinka dalka markaan aan eegno wasiirkii hore ee waxbarashada xukuumadii Xasan Cali Khayre Cabdullaahi Goodax Barre oo kala hadlay boqolaal dhalinyaro ah barta haatan lagu mideysan yahay ee Club House iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dooda halkaas ayaa waxa uu kala hadlay siyaasadda farmaajo arrimaha qarsanaa iyo sidoo kale halka uu dalka ku socdo Goodax Barre ayaa sheegay in dawladdan ay tahay mid foodo iyo qas u taagan balse xukuumadii uu la shaqeynayay ee Xasan Cali Khayre ee ahayd laakiin tan waxa ay wada qas iyo foodo dhibaatada ugu weyn ee dalka ka jirta waxa ay ka socotaa villa Soomaaliya ayuu yiri Goodax Barre oo ka hadlayay barta Club House dhinaca kale Cabdullaahi Goodax Barre ayaa si weyn u amaanay maamulka Puntland iyo Jubbaland isagoo sheegay in dalka ay badbaadiyeen isla markaana ay badbaadin doonaan weligood waxa uu Goodax Barre ku tilmaamay farmaajo in uu carqaladeeyay maamulada Puntland iyo Jubbaland oo doorashooyinkii madaxtinimada ka dhacisay balse uu ku guul dareysay waxaana uu si gaar ah u xusay in maamulka Puntland uu ku bixiyay 2 milyan oo dollar si doorashadaasi loo afduubo hadalka Goodax Barre ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro xaalad hubanti la'aan ah oo laga cabsi qabo in farmaajo uu dalka geliyo dagaal maadaama uusan u diyaarsaneyn in dalka uu galo doorasho iyo sidoo kale isu soo dhaweynta dhinacyada isdiidan markaan lafta gareen ayaa ku soo laabtay Muqdisho oo xaalad cakiran dhanka siyaasadda ka taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda iyadoona ay si weyn u soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda lafta gareen oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Turkiga ayaa waxa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay wasiiro xildhibaano siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
madaxweyne Laftagreen ayaa Muqdisho kaga qayb galaya shirka uu ku baaqay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee ka dhacaya teendhada Afisiyoni oo looga hadlayo khilaafka doorashada ka taagan magaalada Muqdisho. waxaa horey ugu sugnaa madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland iyo Puntland, waxaana Siciid Deni iyo Axmed Madoobe ay degan yihiin xeendaabka garoonka Aadan Cadde, gaar ahaan xerada Xalane. shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu furmo maalinta biri oo Isniin ah, isla markaana ay ka qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada, kaas oo sida uu qorshuhu yahay ka dhici doona teendhada Afisiyoni. beesha caalamka ayaa cadaadis ku haysa madaxda dowladda federaalka ee muddo xileedkoodu idlaaday iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo shirka ka dhacaya caasimadda ay goobjoog ka noqon doonaan beesha caalamka. ugu dambeynna wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya haatanna ah ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika, Soomaaliya, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, Yuusuf Garaad Cumar, oo ka mid ahaa guddigii ay dowladda Soomaaliya u dirtay xarunta dhexe ee maxkamadda ICJ, ayaa shaaciyay in laga helay cudurka coronavirus isagoo ku sugan dalkaasi Holland. Yuusuf Garaad ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu ku sheegay in cudurka laga helay, isagoo doonaya in uu Soomaaliya u soo safro maadaama ay maalmihii la soo dhaafay halkaasi ku sugnaayeen isaga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, kagana qayb galeen doodii maxkamadda ICJ. Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa sheegay inuu dareemay astaamaha cudurka coronavirus, isla markaana uu haatan qaybo ka mid ah uu dareemayo. Yuusuf Garaad ayaa qoraalkiisa sidoo kale dadka uga wacyigeliyay taxadar in ay muujiyaan, isla markaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhalinyarada si gaar ah ay u taxadaraan, waxaana uu dhalinyarada ku baraarujiyay in waalidkooda, waayeelka iyo sidoo kale dadka kale oo aan xamili karin cudurkan aysan gaarsiinin. guud ahaan daawadayaal, wararkii Warsida TV oo naga intaa. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay, saar subscribe, la wadaag asxaabtaada oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela wararka iyo macluumaadkan halkaan soo gelino. nabadgelyo.